Waa kuma madaxweynaha ku eedeysan kufsiga, musuqmaasuqa, boobka iyo isdabamarinta maaliyadda dowladda ee dalka. Jacob Zuma waa madaxweynihii ugu horeeyay dalka South Africa. 79 jirkaan wuxuu dhashay sanadii 1942. Dalkan wuxuu xukumayay muddooyinkii u dhaxaysay 2009 ilaa 2008. Madaxweynihii hore dalka South Africa, Jacob Zuma, muddada uu xukumayay dalka South Africa, xukunkiisa waxaa lagu tilmaamay xukun ku saleysan musuqmaasuq iyo isdabamarin baahsan. Maxkamadda dalka South Africa waxay ku xukuntay Jacob Zuma 15 bilood oo xabsi ah. Xukunkaasi waxaa ka dhashay rabshado aad u baahsan. Dadka rabshadaha wada waxay ku andacoonayaan in xukunkaasi uu ahaa mid aan cadaalad ku saleysnayn. Rabshadahaasi waxay sababeen in la boobo ganacsiga ay lahaayeen ganacsatada ajaanibta ee ku sugan dalka South Africa, waxaana la soo warinayaa in rabshadahaasi ay ku waxyeeloobeen ganacsato Soomaaliyeed kuwaas oo ku ganacsanayay dalka South Africa. Jacob Zuma waxaa loo haystaa 16 dacwadood oo isugu jira kufsi, musuqmaasuq iyo isdabamarin miisaaniyad dowladeed. Sidoo kale wuxuu ku lug leeyahay iibsashada diyaaradaha dagaalka, gujisyada iyo maraakiibta dagaal, waxa uuna ku iibsaday hantida dowladda. Jacob Zuma ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay dalka South Africa oo lagu xukumay xabsi. Madaxweynihii hore ee dalka South Africa, Jacob Zuma, waxaa lagu tilmaamay inuu yahay madaxweynihii ugu burcadsanaa qaaradda Afrika. Ummadda South Africa ayaa dardargelin ku sameynayso heshiisyada ku saleysan dib u qalabaynta ciidamada militariga dalka South Africa. Dalka South Africa ayaa ku biiray dalalka ugu cadaaladda badan marka loo fiiriyo qaaradda madow kadib xukunkii Jacob Zuma.